maamulka Jubbaland ayaa amar u soo saaray waxa uu ku mamnuucay gawaarida aan taarigada lahayn inay dhex isticmaalaan magaalada Dekada ee Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose oo iminka xarunka meel gaar ah oo maamul goboleedka Jubbaland warkaasi iyo war kale oo ku saabsan kulan looga hadlayay bixinta canshuuraha iyo sida dadweynaha ay canshuurta u bixin karaan oo lagu qabtay magaalada Kismaayo waxa inoo soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaada. amarkan maanta ay soo saartay wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la xiriira gaadiidka aan sharciyeysnayn amaba aan taarikada lahayn ee dhex mara wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo kuwaas oo ay sheegeen in arrimo amni darteed iyo fulinta sharciga ay u sameeyeen in gabi ahaanba amarkan lagu soo rogo dhammaanba gaadiidka kala duwan ee isticmaala magaalada Kismaayo ee aan sharciyeysnayn. waa kan Yuusuf Maxamed Cali agaasimaha wasaaradda gaadiidka Jubbaland oo arintaasi ka hadlaya. guddigu waxay isku raaceen 1 Janaayo 31 Janaayo inta u dhaxaysa in baabuurta Jubbaland joogta loogu goosto taarikada 31 Janaayo qofkii ka dambeeya baabuurka waa laga dhigayaa waa la ganaaxayaa ganaax uusan ka kici karin baa lagu dhufanayaa 1 Janaayo maanta oo ay tahay bishu 29 maanta oo ay tahay bishu 29 iyo 31 Janaayo inta u dhaxaysa waa in lagu goostaa taarikooyinka baabuurta sharcigooda waa in lagu goostaa baabuurkii sharci darro lagu qabto waa laga dhigayaa waana la ganaaxayaa. waxaanu ognahay baabuur taariko iyo lambar aan islahayn ay ku xidhan yihiin oo wadada aad u mara dadka noocaasu ilaa 10 hayse soo diiwaangeliyeen ayaga oo ka cararaya in la qabto oo arintaas lagu soo oogo ayagoo ka cabsanaya hayse soo diiwaangeliyeen hay yimaadeen khaladkaasaan ku jira waxaana laga qabtaa halayahay wasaaradda gaadiidka hay yimaadeen. dhanka kale maanta magaalada Kismaayo waxaa kulan ballaaran ku yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubbaland kaas oo diiradda lagu saarayay dhaqangelinta arrimaha canshuuraha oo dhawaanta dowlad goboleedka Jubbaland uu meelmariyay. markii kulankaasi uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Cabdirashiid Jirre Qalinle oo ah wasiirka maaliyadda ee Jubbaland waxaana uu sheegay shir dheer buu ahaa saacado badan qaatay oo aan kula kulmaynay dhammaan hay'adaha ka shaqeeya Jubbaland waxaan doonaynay inaan ku wargelino dhaqangelinta xeerka canshuuraha oo la gudbiyay bishan December baarlamaankuna ansixiyay dhaqangelinteeduna bilaaban doonto 1 bisha 1 2017 si fiican buu shirka u dhacay is-afgarad buu ku dhamaaday dhammaan hay'adihii Jubbaland ka shaqeynayaan is aragnay xog waraysi badan waxaanu u sheegnay in sharciga ay iswaafajiyaan oo isdiiwaangeliyaan oo aan la arkin hadda wixii ka dambeeya hay'ad laptop ku shaqeysa ee hay'ad walba horta hore yeelato xafiis loogu soo hagaago. midda kale waxaanu ka codsanay inay soo gudbiyaan daatadooda ay ku idil yihiin dhammaan shaqaalahooda gawaaridooda iyo xafiisyadooda. Aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.